eeg asxaabay platformka Inveil in badan baan qorayay waqti badanna waan geliyay marka platformka wixii technical ee project based ayaynu ku soo gudbinaynaa asa course ahaan ka dhiganaa hal project baa laga yaabaa inaan course ka samayno kadibna aynu dhisno sibahan waxaan focus ka saarnaa qaybta programmingkii baa kala duwan qof waa front end qofna waa back end engineer marka iminka adduunyadu xagga full stack bay danaysaa sababtoo ah full stack software developer haddaad tahay goodhow waxyaabo badan baa kuu fududaanaya okay so inagu wixii full stack baynu focus ka saarnaa oo wixii project based baynu soo dhisanaa sidaan goordhow projectyada AI iyo artificial intelligence iyo waxyaabaha aynu ugu sii dabaqi karno okay so goordhow xaggaas aynu sii gudbanaa marka insha allah qaybtii project based ka ayuun baynu inagu wadanaa oo aynu mar walba soo xaggan kusoo gudbinaa platformka Inveil marka platformka dhexdiisa dhalinyar badan baa waxay soo weydiinaysaa xagee laga baranaya ma class online baa la gelayaa maya class online iyo xaasi ma jiro imanka platformka waxaa loo sameeyaa e-learning markuu yahay haddaad sida Udemy oo kale aad aragtay inaad meesha platformka dhexdiisa ka wax ku barato course-kaaga mar baad gadanaysaa my courses-kaaga ku tagayaan kadibna waad ka baranaysaa content-gii videoyada halkaas ku furmayaan sababtoo ah semas adigu dhalinyarta aragtay Udemy oo kale ama Skillshare ama Coursera oo kale wax ka baratay kale way fahmayaan oo online courses iyo waxyaabaha oo wuxuu ku fiican online coursesku waad ku celcelinaysaa as long as aad ka fahmayso project-gaas from scratch to end waad ku celcelinaysaa sababtoo ah adiga iskale markii waxbaad fahmi weydo waad ku celcelinaysaa videoga dib u bilaabanaysaa waad ku celcelinaysaa ilaa aad ka fahmayso ma aha intuu qofku soo hor istaago wax ku sharaxo dibna ka tagayo kadib online-ku waxay ku fiican yihiin repetition baad samaynaysaa mar walba as long as aad wixii ka fahmayso marka inagu wixii project based baynu dhisanaa oo aynu kusoo gudbinaynaa halkan dhalinyarta qofkii xirfad doonayana uu ka faa'iidaya qofkii xirfad lana uu ka faa'iidaya sababtoo ah qofka haddaad xirfad leedahay xataa laftiisa skill aad leedahay Inveil waxaan ugu talagalnay qaybtii course creationka way leedahay instructorka sida Udemy oo kale haddaad instructor tahay oo technically wax project based aad samayn karayso sida programmingka software development oo kale aad project based aad dhisi karayso Inveil waxaan ugu talagalay qaybta instructoradu inay ku soo bandhigaan kuursadooda oo wana proof gareyn karaa oo isagu ku dhigi karaya qofku oo instructor bisu diiwaan gelin karaa kadibna course-kiisa iyo wixiisa halkaas uu insha Allah ku soo dhigan karaa isagana maamulanaya wax walba same as Udemy oo kale dhammaan instructor haddaad tahay Udemy aad aragtay amba aniga kale Udemy instructor baan ahay same as oo kale ayaan u dhisay platformka Inveil marka la socod wanaagsan guys aad baa ku salaamay